Kooshdul, salaamun calaykum, maalin wanaagsan. Cinwaankayaga maanta waa milkiilaha hantida Soomaalida. waddan walba dadkiisa ayaa dhiso, qarashka lagu dhisana wuxuu ka yimaadaa dadweynaha, wuxuu ka yimaadaa xagga canshuurta, iskaa wax u qabso, iyo magaca waddanka. Hantida maguurtada uu waddanka leeyahay sida badda, webiyada, dhulka iyo waxyaalaha ku dhex jiraba, iyo hantida la raro sida qalabyada, gaadiidka iyo bakhaarada, waxaa lagu ilaaliyaa hab nidaam dawlad daacad ah. 30 sano ka hor waddanka wuxuu iska lahaa warshado kala duwan oo dadka u soo gudbisa dharar, sokor, caano iyo waxyaalo la mid ah. warshadahaas kala duwan oo dadka u baahnaayeen ayuu waddanka lahaa. sidoo kale Soomaaliya waxay leedahay diyaarado kala duwan oo dadweynaha u gaarka ay ku safri karaan dawladaha kale ee caalamka si qab iyo qiimo leh. Soomaaliya waxay kaloo lahayd diyaarado dagaal, taangiyo, sawaariikh iyo hub kala duwan oo lagu ilaalinayo waddanka, looga ilaalinayo cadawga dibadda. Soomaaliya waxay kaloo lahayd dhismooyin kala duwan oo qurux badan, xafiisyo, jardiino, kuwaas oo u adeegayo dadweynaha. Markii la riday dawladdii dhexe ee jirtay, halka la rabay siyaasiyiinta iyo hogaamiyaasha ciidanka iyo booliska inay ilaaliyaan hantida waddanka, waxay sameeyeen cagsiga taa. dadka intooda badan waxay u maleynayeen hantida inay u gaartay madaxweynihii la riday. waxaa bilaabatay biralaqo iyo boob oo qof kasta u maleynayo hantidan uu dhacay inuusan asiga lahayn. mid walba wuxuu isku dayay inuu qaato biralaqada waxa uga fududaa uu gacanta ku dhigi karo. qofna kuma fikirin inuu ka faa'iideeyo hantidaana dadweynaha u gaarka ah, xataa asigoo ugu adeegayo hal xaafad qura. waxaa la burburiyey dhismayaashii kala duwanaa, waxaa la furfuray qalabyadii kala duwaneed, waxaa la qaatay oo la burburiyey diyaaradihii iyo warshadihii u adeegayey dadka. cidda burburinaysana waa ciddii u adeegaysay qalabkaasi. hantidii dadweynaha iska lahaa qaar ka mid ah waxaa loo raray oo loo guuriyey waddamo kale. sidaan maqalnay baryahan dhaweed oo la leeyahay diyaaradda Soomaali ee leedahay ayaa Kenya agteeda taalo ay doonaysa inay ku iibsato ama ay ku gado qarash ama lacag yar. goormay dadku fahmayaan hantida dadweynaha inay iska leeyihiin iyaga qudhooda? ilaan biriliqadii maaha mid ku koobneed keliya markii uu dhacayay dagaaladii sokeeye, xataa markuu soo laabtay amni yar oo nidaam iyo dawlad yaroo la helay, ayaa dadka qaar markay soo baxayaan banaanbax ayaa waxay samaynayaan rabshado ay ku jajabinayaan oo ku burburinayaan hantidii dib loo sameeyey. sida ka dhacdayba goobihii basaska ahaa mar dhow la dhisay. dhib ma laha qofka inuu kusoo gudbiyo cabashadiisa iyo xanuunka uu dareemayo si nabadaysan, balse maxaa loo duduminayaa hantida dadka ka wada dhexayso? qaarna hantidii dadweynaha ka wada dhexaysay ayay waxay u adeegsanayaan si qaasa ay qoyskoodii iyo arrimahooda gaarka ay ugu adeegayaan. xataa haba dhacdee taa kadib markii hadda ay soo laabatay in yaroo nidaam oo dawladda ay jirto, ayay diidayaan in dib loogu soo celiyo hantidii dadweynaha ka wada dhexaysay. qaar baa u dagaalamaya, hub u soo qaadanayo si ay ugu waarto agtooda, iyagoo iska moogaysiinayo hantidan inay dadkii Soomaaliyeed oo idil ay ka wada dhexayso. maalinta qiyaame marka dadku banka isugu soo baxo ayaa adiga ceeb gaari ku saarantay. calaa ru'uusi lashaad baa lagu soo taagayaa wixii aad xadday iyadoo aad tuurta ku sido oo ay weliba qaylinayaan oo dadkoo dhammi ku arkayo ku maqlayaan ayaa lagu soo taagayaa. inta qiyaamaha banku dadku taagan yahay la xisaabayo dee 50 sannadood meelahaasaa la taagnaadaa qiyaamaha. intaasoo dhan tuurtaad ku sidaysaa, khalqiga ilaahay oo dhammina waa ku arkaya, hadhowna naartii baa kuu dambaysa. saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wassalaam, ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamay wamaa kaana linabiyin an yagul waman yaglul ya'ti bima qalla yowma alqiyaama baa ilaahay ya'ti bima gal, wuxuu la imanayaa wixii uu khiyaamayey maalinta qiyaame banka isagoo taagan oo tuurta ku sida. saa daraaddeed baa xadiiska saxiixaynka ku soo arooray wuxuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, intuu tuuganimada xoolaa dad ka dhaxaysa ka warramay oo aad u weyneeyey oo uu tilmaamay dembigeedu intuu leegyay, ayuu dabeetana wuxuu nebigu yidhi laa ulfiyanna axadakum yajii'u yowma alqiyaama calaa raqabatihi baciirun lahu rugaa. war hooy akhrayaan idan arkin maalinta qiyaame adigoo tuurta ku sita neef geel ayaan ku arkin buu nebigu leeyahy. neefka geeloo reemaya ama dee cod samaynaya, neef geela oo dhawaaqaya adigoo tuurta ku sita yaan idan arkin buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. neef geeloo ololaya adoo tuurta ku sida ayaan ku arkin oo leh yaa rasuula allahi akhifni, ilaahay rasuulkiisiiyow ii gargaar leh, waxba maanta kuuma hanto, waa ku soo gaadhsiiye aan leeyahay buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. warkaasi waa inuu gaadho dadka u kala baratamaya, u kala ordaya xoolaha dadweynaha inay qaataan, meelaha nafcigu leh u kala yaacaya, guryaha ka dhistay, magaca ku yeeshay, shirkadaha ka samaystay, ka noolaaday, ku tamishlaynaya, waa inay ogaadaan maalinta qiyaamada markay yimaadaan wax badan inay xambaarsanaan doonaan.
hantida dadweynaha ay wada leeyihiin waa sida guri dhaxal ah ayna suurtagal ahayn hal qof qura inuu la wareego ama gato iyadoo inta kale dadkii la wadaagaya hantidaasi ama dhaxalkaasi aysan diyaar u ahayn in arrintaasi la sameeyo hadday ka aamusaan waxay sidaas ku waynayaan hantidii iyaga iyo xuquuqda ay lahaayeen hadday hadlaan ay dhaqdhaqaaqaanna mid walba wuxuu helayaa xaqa uu iska leeyahay xataa kan doonaya inuu wax boobo xaqiisa gaarka ayuu helayaa qof walboo Soomaaliya wuxuu xaq kaga leeyahay hantida dadweynaha ka wada dhaxayso Soomaali kastana waxa waajib ku ah ilaalinta hantida dadweynaha bililaqadu waa baas hanti dhowrkuna waa horumar maalin wanaagsan salaamun calaykum